walaalkayga muslimka ah waxaan kaa codsanayaa hadduu fiidiyowgan ku soo gaariyo inaad sii sheergaraysid ku sheergaraysid Samafala Cabdullaahi. Samafala Cabdullaahi waa taqaanaan, waa nin sabab u ahay boqolaal qof oo dhibanayaal ah caafimaadkooda sabab u ahay. Allah subxaanahu wa ta'ala ayaa caafimaadka bixiyo, balse haddii qof dhibaataysan maanta caawintiisa ku dadaashid waxaa sabab u noqotay qofkaasi sidoo ku caafimaadi lahaay. Samafala Cabdullaahi waa nin wanaagsan oo ku sugan magaalada Kismaayo. Wuxuu markas oo ku leeyahay magaalada Kismaayo. Markaska waxaa lagu magacaabaa Abubakar Sidiiq. Markaskaas ayaa waxaa lagu baxnaaniyaa dadka dhibaataysan, gaar ahaan dadka waalwaalan oo dhimirka la. Samafala Cabdullaahi wuxuu sabab u ahay boqolaal qof caafimaadkooda ayuu sabab u ahay. Dadkaasi oo haddii aad aragtid ka quusaysid ama haddii ka hor yimaadaan adiga iyo asiga haddaa iska hor imaadeen qofkaasi ka cararaysid, maxaa yeelay waa qof dhimirka looga jiro, waxaa laga yaabaa wax walbo inuu ku geysayo. Samafala Cabdullaahi dadka uu ka qayb qaadayay waxaa ka mid ah ninka hore idinla wadaagnay oo ku sugnaa xeebta. Halkaasi wuxuu ahay hooy ayuu ahay. Samafala Cabdullaahi wuxuu ka qayb qaadayay ninkan sida uu u badbaadin lahay. Allah subxaanahu wa ta'ala ayaa dadka badbaadiyo, balse wuxuu ku dadaalay sidoo sabab ugu noqon lahaa ninkan caafimaadkiisa. Samafala Cabdullaahi waa ku guuleysay oo macnaha ninkaasi inuu caawiyo, haddana caafimaadka Allah ayaa bixiyo, sabab ayuu ahay inuu ninkaas caafimaadiyo. ninkii waxaa la geeyay hooy qurux badan, meel cibaado oo masaajid, waxaa la geeyay meel oo dadka lagu dabiibo. ninkii waxaa laga bedelay dharkii, waxaa laga jaray timihii. ninkii wuxuu ku soo baxay nin kala arag yaa sabab u ahay. waxaa sabab u ahay Samafala Cabdullaahi. Samafala Cabdullaahi wanaagga oo hayo ka qayb qaadana walaal. waxaa maanta kula wadaagayaa walaal dhibana ah oo u baahan in loo sheergareeyo Samafala Cabdullaahi si wax loogu qabto ninkaasi. Samafala Cabdullaahi wuxuu mudan yahay maanta inaan ku daysano oo dadka saan oo kale u dhibaataysan inaan isku dayno inaan baxnaanino oo caafimaadkooda ku dadaalno. waxaa aaminsanahay boqolaal dad oo hadda arkaysid inay waalan yihiin u aragtid inaa dhimirka looga jiro. waxaa laga yaabaa hadda lagu dadaalo inay dadkaasi caafimaadayaan. Samafala Cabdullaahi wuxuu ka qayb qaadayay oo sabab u ahay boqolaal dad caafimaadkooda, sida ninkii xeebta ku sugnaay. halkaas ayuu waxa u ahay hooy oo habeen iyo maalin oo seexayo. waa xeebta qabowga ku soo dhacayo, qoraxda ku soo dhacayso ma malaysa kartid. ninkii maha loogu tagay waa la soo waday, waxaa la keenay xarunta cilaajka Abubakar Sidiiq ee ku taala magaalada Kismaayo. xarunta markii la keenay maxaa dhacay? waxaa arkaysaa ninkii oo iska qoslayo oo farxad dareemayo. sida hore oo ahay haddii laga soo gudbo sida oo maanta yahay hadda aragtid, bal adiga isku qiimee oo isbarbar dhig. dadka oo sabab u ahay caafimaadkooda waxaa ka mid ah ninkii ku caan baxay waxbahay caawinine orod soo xar. ninkii ku caan baxay asigana waa nin hadda culimo ah, waa nin quraankiisa akhrisahayo, waa nin ku dadaalaya diinta sidoo ku baro lahay. shalana muxuu ahay waa nin garaawada ka daba cararayo, waa nin wax jaadkaas oo ka maqan yahay garaawada soo qaadahayo jidka la fadho. habeenna ma cashay jirin, maalintii ma quraaco jirin, wax uu cabiyo iyo wuxuu cunyo ma heli jirin ilaa cagaarkaas maahane. waxaana sabab u ahay walaalkeen Samafala Cabdullaahi. hadalka aan soo koobo, waxaa maanta qof walba oo muslimna ka codsanayaa fiidiyowga idinla wadaagi doono
inaad sii sheergaraysiin oo ku sheergaraysiin Samafala Cabdullaahi sida oo ninkani oo sabab uu ugu naqayo badbaadintiisa. annaga waxaa nagala rabaa inaan dadaalno oo dadaal inaan muujino. Allah subxaanahu wa ta'ala ayaa caafimaadka haayo. Allah subxaanahu wa ta'ala ayaa dhibaatadana haayo. balse Allah subxaanahu wa ta'ala qof ayuu sababkaaga dhigayaa. waxaa laga yaabaa ninkani caafimaadkiisa inuu sabab u naqayo. qof walbo oo ku daysado Samafala Cabdullaahi waa qof wanaag ku socdo, waa qof dadka dhibaataysan oo dhimirka looga jiro, ama qof walbo muslim oo dhibaataysan dhibkiisa sidoo uga bixi lahay sabab u noqon karo. videogan hadda arkaysaan waa nin waalan. aniga garan maayo maha uu ku sugan yahay, balse dadka waa iiga aqoon badan yihiin. haddaa baraha bulshada la soo dhigo mar qof waalan, maha uu joogo waa la ogaaha. ilaan qofka meel oo dad ay ku nooleen ma joogo. dadku ka soo waalay dhexdooda ayuu joogaa. walaal waxaan ka codsanayaa muuqaalkan inaad sii sheergaraysid. haddaa aad samey karin sida Samafala Cabdullaahi oo sameeyhayo, saaxib waxaa sameysaa videoga sii sheergaray sida uu u gaariyo Samafala Cabdullaahi iyo wixii la mid oo ku dadaala mar walbo sida ay dadka dhibanayaasha badbaadintooda sabab ay ugu naqan lahaayeen. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.